aqliyan bay logic baynu ku wada hadlaynaa miyiga markaad tagtaan ama miyiga markaad u fiirsataan reer kasta gurigiisa waxa ku dhinac taala maxay xerada maxaa loo sameeyay xoolo in lagu xereeyo macageela la xereeya soo maaha limaada xoolo loo xereynay si bahala looga ilaaliyo neefka xerada diida ee marka sada xerada ka firdhada ma laga hadhayo ma la deynaya fahma markaa qodob nahnu rijaal waraabiyal baamano waraabiyal soo garan miisaan anu waraabiyal baam waxaanu doonaynaa waa maxay waa idinka jirkiina idinka xataa idin doonayma shakhsiyadiina doonaymayno jirkiinaanu doonayno markasta oo aad naga xerootaan oo nagala dhuumataan oo naga xijaabataan sidaa xoolaha ariga xerada ku xiraysan uga badbaadiya bahalka dibadda ayaad nooga badbaadaysan markasaad banaanka nagu soo baxdaan ama suuqa nagu soo baxdaanna rumaan idin sheegaya waxba islaam iyo waxba yinaan ku maarteen dadku miyaan islaamay inanka intii soo qawiso dunida soo wadhaa marka la qabsado leena waxan way abdira ama mid qashqashaado miyaan islaam laahayn miyaan ilaahay laga baqaynay la soo fadhiisataan rumaan idin sheegaya inagoo islaam baad arki doontaan haddii aad fasahaadaan idinku iyadoo sida dumarka gaalada meesha transportation iyo tareenka iyo gaariga la idinku qashqashaadayo oo iskuulka la idinku qashqashaadayo oo jaamacadda la idinku qashqashaadayo dhakhtarka kabeesha ka watiine kabeesha keedina diiwirsan la idinku qashqashaadayo limaada laana wuxuu doonayay bad banaanka u soo dhigtay maxay nimanku sidaas oo dhan quruxda dumarka ugu jecel yihiin su'aal muhiim ah ma labadii ugu horeeyay adduunka isdiriyay haabil iyo qabil maxay isku dileen inaan qurux badan bay isku dileen waa labadii nin ugu horeeyay adduunka ilaahay ba ku abuuray aadan dabadiyo waadan dhalay laba hablood bay la kala dhasheen waa la isu weydaariyay waxay dhaadnatan gursaadna tan mid baashow inantii isaga la uurka ahayd ay isku mataansanaayeen baa yar qurux badnayd tii buu tan ilama yar qurux badnaan iyo tan ila dhaltay baan gursanaya war ilaahay sidan muu oran walaalkii muxuu dilay marka gabadh qurux badan inuu gursaday daraadi hadhow intu miskiin halka soo farso kon yareega dumarka quruxa ku raacina labadii ugu horeeyay isku dilay maxaan ku raacnaa anaga wax kale ma garaacna war ma garatan inta labadii nin ee ugu horeeyay ee adduunka isdiray waxa isku dileen waa qurux dumar yaani jirka dumarku anaga ahmiyadu noo leeyahay haddii ka banaanka naloo soo dhigo dayn mayno ama khamiisanu sidan ama sharis ruuxu sidan dayn mayno marka inoo qariyo walaal ma garatan waay qodobka ku xiga marka walaalkaas walaal ma lihidin hadduu ku yimaado ku yiraahdo walaal inan baan doonayaa inaan guursaday bal inan ii soo baadh inan nacooda soo baadh inantii tiktok caanka ka ahayd ee waxaan ku halka ka jaasi jirtay mise inantii iskuulka ugu waxaan ku shaxshaxda badnayd ee waxaan ku galaaska ku dhex jiri jirtay mise inantii khatar tahay mise inantii suuqa inantii wad raadinaysa inan astroon saaxiibada ku darmiisid inan astroon xijaaban baad ku daraysaa Soomaa ama dabcan adigu inanta saaxiibadaada ugu aragtay in qiimiye maqam ku leedahay oo astroon xijaaban laakiin oo hablo yar wanaagsan eedatay oo eedatay inay soo saaraysa way sidaas lamida nin kasto caawa golaha fadhiyo iyo xataa ku halkan xawaagta ku cabiyo dibadina markaad u tagto hadii aad ku taado walaal ila tali laba tali ku siinay xijaab nin kasta wuxuu ku oranayaa xijaab kow ragana iska urur ha ku milmin rag labada tala nin kasto adduunka jooga ku siinay ninku oranaya isqaab waliga arkimis ninku oranaya banaankiisa soo dhig arkimis hatta ka doonaya inuu meelaha jirkiina kaga raaxaysto isha kala socda hadal kale qurux badan inaad xorowdaan weeyaan iyo inaad sidan tiraadaan iyo wixii leeyo sharaxay imka ayuu kugu soo gabanaya ogaada marka waxa muhiimka ah waxa weeyaan kullama aad naga qarsoontihiin marka soo aad naga qarsoontihiin waa markasta oo aad qiimi fara badan agteeda ku leedihiin waay sida aad walaasha ugu doori lahayd inanta asturana xijaaban akhlaaqda iyo karaamada leh ayay inan kasta wali doonaysaa walaasha iyaduna inan asturana walaalkeed inan asturana xijaaban intaas miyay isku khalkhash kala saar idinku waay qodobka xiga marka soo digmoon anagu khayaalkan u jecel lahaa markayna halkaas soo marto ay xijaaban tahay ee asturan tahay sidii sharciga ahayd la inoo sheegay waa asturan tahay waa caraysi ay ninka ku caraysanayso ku leedahay nin ragabaan ku arkay yani anagu tafsiirkan ka qaadana badanka hablu waxay jecel yihiin in la fahmo iyago aan waxba si bareer u sheegin habeenka ay intu caraysan tahay afkii buurasana maxaa ku dhacay muujiye laakiin cabaad marka la wado marka dambe maxay oranaysaa waxa saa dhacay ma jeclayni markiiba hadalka sheegto yani dumarku waxay jecel yihiin daa'iman nafsad ahaan in la fahmo waxay doonayaan soo maaha markay inaan wada xijaabanay halkaas aan marayso aniga way caraysanaysaa kaninaan maxay leedahay nin ragaan ku arkaa qiimada aniga agteeda ka leedahay raganimadan ku ixtiraamaya yani nin wiilo shahmiye baan ku arkaa marka maxaan doonayaa anuguna maxay waajiba inaan ragnimadeeda qiimeeyo wadaalka inanta waxaan ku iska yar ururinaya xaq baan weera beeriya haduu mid isku dayin la hadlin isdileena ka limaada ragnimadeedii ku tacadiyay inanta waxay ugu leedahay nin raga baan ku arkaa inanta ugu nin ragan ku arkaa horteeda lagu shaqshada maxaa dhacay meena musay ragnimadeedii baa lumaysa Soomaa waa inaan u dagaalama marka sidaas si lamid ah inanta soo qawisay soo kuskusta halka soo marta iyaduna waxay ugu leedahay aradan intii kale wax iska celisan aan ugu fahmay sida ninka soo fahmaya maxay ku leedahay waa aniguna ruuxii quruxa doonaysa waan hayaa kuwaasi